السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل هادينا مهتدين. إله نغدق كوا هنونسان دادكنا هنونيا دمان دادكا سوماليات برنامج كقفاعو كدقيسانا يراديو بورمي كنا داوانا يسومالي كنديان تي في برنامج كقفاعو مانتوا مالين 4 بيش فيبر ولينا تهي 4 لباكن 4 waxaa barnaamijka aan ku soo qaadanaynaa waxaa saaka shir u qabtay magaalada Muqdisho garabka Awdal State ee uu hogaaminayo Professor Cabdisamed Nageeye iyo Dr. Cabli Bahar oo ah Awdal State Movement oo la kulmay wasiirka daaqiliga iyo khilaafaadka wasiir fiqi. waxaa kaloo barnaamijka ku soo qaadanaynaa waxaa saaka hadlay wasiir dowlaha amniga wasiir xagaa oo ka hadlay hawada Soomaaliya inay Soomaaliya ay tahay kuwa iyagu gacanta ku haya dhamaan dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka gufaaco ka dhageysanaya radio Porame. saaka waxa xafiiskiisa iskugu yeeray mar labaad wasiirka daaqiliga ahna khilaafaadka wasiir fiqi oo kala hadlay gobolka Awdal aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta khilaafka dhexdooda ka jira isaga oo si wanaagsan ugu cadeeyay ujeedada dawladdu ay tahay iyo mowqifkeega. waxa kale oo kala hadlay walaalayaal arrin maslaxada oo ah bulshada dhexdeeda. waxa jira Ilaahay wuxuu leeyahay dadku kulan ma galaan ilaa kulanka 3 ayaa ugu khayr badan. waa mid marka hore la farayo dadka sadaqad, mid labaadna waxa weeye islaaxu bayna dadka oo la heshiisiinayo iyo iyada oo waxa fiican la farayo xumaantana la reebayo iyadoo Ilaahay dartii ay ka tahay. haddaba wasiirku waxa uu baryahan ku hawlan yahay sidii ay u garab istaagi lahaayeen Awdal iyadoo khilaaf siyaasadeed u jiro. waxay maahmaah Soomaaliyeed ahayd gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa. waxa loo baahan yahay inay wasiirka iyo dadka ka shaqeynaya islaaxa labaduba ay maqlaan oo ay dhageystaan. haddaba bulshada Soomaaliyeed waxaynu ognahay in maanta siyaasadda Soomaaliya ku dhisan tahay in la raadiyo 18 gobol. waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaa barnaamijkan mar hore ku duubay dhowr sanadood ka hor har wanaag. barnaamijkan oo aan ugu duubay in aan halkan dadka ka gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed inay ogaato maamul goboleedadani maxay ku dhisan yihiin. waxa ay wataan jabhadihii, nin walba jabhadihii hogaamayay magacii uu haystay ay maamul Soomaaliyeed ku dhisan yihiin iyagoo loo arkay xal. haddaba waxaa jira hadalhayn fara badan oo had iyo jeer dhacda gobolada waqooyi iyo koonfurta. waxaa jira gobolada waqooyi in ay maanta sheegayaan dulum soo gaadhay xagga siyaasadda markay noqoto dhammaantood iyagoo isku duuban. koonfur waxaa ka jira 5 gobol. haddaba ummadda barnaamijka dhageysanaysa si gaabkaa u dhexeeya la iskugu soo dhaweeyo waxaan ummadda Soomaaliyeed halkan iyo siyaasiyiinta rabaa inaan ka tuso only sida kaliya wax lagu xalili karo una dhow siyaasadii midnimada 18 gobol. waxay tahay in waqooyi laga helo states kale oo lamid ah sida kuwa iminkan la hayo oo ay tahay maxay khaatumo oo iyadu meel taagan. waxa kale oo iyagu jira qolo la yiraahdo Northern State waa Burco iyo Sanaag iyo inta. waxa kale oo iyadana jira gobolada waqooyi gobolkii la oran jiray waqooyi galbeed waa 3. waxa loo baahan yahay stateska in lagu daro Awdal oo iyaduna ay tahay mid taagan. marka waxay noqonaysaa gaabka labadaasi u dhaxeeya koonfurtu waa 5 halkana waa 4. waxa soo dhawaanaya wax wada laahashaha. laakiin haddii iminka loo xisaabtamo oo ay tahay fikir mar hore laga soo guuray aynu arkayno in dad badan ku haraaqayaan gobolada waqooyi inay adag tahay maadaama lagu dhisay arrintii ku saabsanayd 4.5 ku ay tahay arrin fashilantay. federalism kuna arrin fadila ay tahay arrin fashilmay oo arkaysaan Soomaali inay isku qabsanayso magaalada halkan ay raacsan tahay dooxan ay halkan u raacsan yahay. xadku waa halkan khilaaf horlana aan loo baahnayn in lagu dadaalo sidii loo mideyn lahaa 18 gobol oo midaysan. waxaan dadka barnaamijka la wadaagayaa saaka waxaa hadlay oo runtii waanooyin aad u dhaxalgale u soo jeediyay Somaliland wasiir xagaa oo kamid ah wasiirada gobolada waqooyi. waxa uu sheegay oo uu yiri hawada Soomaaliya ayaa laga maamulaa
waxaynu maqlaynaa in somalilan aynu dhegaysanay meelo ka mida miidiyaha la sheegayo inay isticmaaleen qalabka lagu magacaabo VHV haddii ay ku dhaqaaqaan waxaan rabaa ummadda inaan u sheego inay violation tahay oo ay ganaax adduunyada kala kulmi doonto somalilan iyadoo la ogyahay hawada heshiiskii la wada galay in lagu ogyahay dowladda federaalka soomaaliya waxa kale oo uu sheegay wasiir xagaa in uu yidhi ummaddiina beenta ka daaya runna ay tahay dadku mar walba siduu nebigu yidhi qofka muslimkii fulana uu noqon karaa bakhaylna uu noqon karaa laakiin beenaali ma noqon karo barnaamijka waxaan ku gabagabaynaynaa maalmaha wax ka socda somalilan loolankii doorashooyinka xisbiyada waxa baryahan taagan xalay waxaa hadlayay cabdilaahi dheere waxa uu ahaa nin godob gadan ka galay dadka ka soo jeeda awdal iyagoo xisbiga kulmiye uu ku jiro hadaladii qaafo fara badanna yidhi saaka waxaan maqlaynay isagoo la weydiinaya haldeeriga lagu gelayo isagoo oo khaldamay oo ay ahayd haldeerigu waqtigii lagu galay waxay ahayd keliya waqtigii doorashooyinka dowladda hoose laakiin faa'iido ugu jirto gobolka awdal iyo gobolka salal iyo gobolka kale ee sool intaba haldeeriga iyadoo ay tahay in codka la helayay 20% tahay codkuna loo baahan yahay in equal loo sameeyo dadkana la isku hayo fikradaasina fikradda ugu wanaagsan tahay dhammaan dadka barnaamijka gufaaco ka dhagaysanaya raadiyo boorame Somali Karen TV wanigoo tafaqtiraa Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan